qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo jacayl u qaaday duq waayeel oo 80 jir ah, taasoo da ahaan isaga ka weyn 45 sannadood. Inta aanan gudagelin sheekadan xiisaha leh, fadlan haddii aadan horay noola socon, haatan like saar boggeena Facebook, sii share garay muuqaalkan, sidoo kale subscribe na saar barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Daruuraha. Haddii aan sii gudagalno sheekadeena, ninkan dhalinyarada ah ayaa lagu magacaabaa Maxamed Al-Muhammadi. waa 35 jir u dhashay waddanka Masar, waxaana shaqadiisu ay ahayd mid kontaroola tayada biraha alxanka. intii aysan internetka ama Facebookga iska baran, haweeneydan 80 jirka ah ee u dhalatay Ingiriiska ee lagu magacaabo Iris Jones oo iyadu haatan howlgab ah. Markii ay suureysteen oo ay sheekaysteen kadib ayaa labadan lamaane waxay ku ballameen inay ku kulmaan Masar, waxaana Iris Jones ay timid Masar iyadoo kadibna markii ugu horreysay si foolka fool ah ay u kulmeen wiilka ay hawada iska caashaqeen ee Maxamed. Laakiin waxaa yaab leh in labada qoysba, waa reerka duqdan 80 jirka ah iyo qoyska wiilkan Masriga ahba ay diideen qorshaha guurkan, iyadoo qoys waliba uu sheegay inaysan haatan macquul ahayn in laba qofood oo u dhaxeeyo farqigaasi xagga da'da ah ee aadka u weyn ay nolol wadaagaan. hase yeeshee markii dambe labadan lamaane waxay ku adkaysteen inaan la carqaladeyn guurkooda, waana laga aqbalay, waxaana haatan guurkooda uu ka dhacay waddanka Masar. Maxamed oo u warramayay wargeyska Al-Watan ee Masar ka soo baxa ayaa sheegay in jacaylku sidiisaba uusan indho lahayn, islamarkaana uusan aqoon da' iyo jinsiyad toona. haweeneydan da'da ah ayaa iyana mar wargeysyada Ingiriisku ay weydiiyeen in wiilkanin dhalinyarada ah ee waayeelgaadka ah uu u dan leeyahay oo keliya inuu ka dhaxlo gurigeeda, ayaa waxay ku jawaabtay, aad baan isu jecelnahay. haddii uu xooladoon yahayna wax badan iga dheefi maayo, waayo anigaaba ku nool 200 oo giniga sterliinka ah isbuucii, oo ah lacagta waayeeladu qaataan. wax kale iska daayay, markaan maqaayadaha iyo dalxiiska u baxno kharashka waan qaybsannaa bar iyo bar. waxaa kale oo haweeneydan reer Ingiriiska ah ay sheegtay in Maxamed Yare uu xitaa oggolaaday si uu ugu muujiyo jacaylkiisa inay kala qorteen heshiis dhigaya inuusan xoolaheeda u socon ee uu lafaheeda iyo jacaylkeeda doonayo. wiilkan Masriga ah ayaa sheegay in xaaskiisan cusub uu ku guursaday sida ay qabto sunnada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. kadibna wuxuu xusay in diinta Islaamka uu u bandhigay gacalisadiisan 80 jirka ah, iyaduna ay ka aqbashay oo ay qaadatay islaamnimada. laakiin dadka isticmaala baraha bulshada ee xagga internetka ayaa ku digtay go'aankan uu qaatay ninkan Masriga ah, iyagoo intooda badan sheegay inaysan jirin sabab uu nin dhalinyaro ah u guursado naag 45 sano isaga ka weyn oo aan ka ahayn inuu xooladoon yahay. hase ahaatee Maxamed ayaa yidhi, anigu ma doonayo jinsiyad kale iyo lacag toona, qaabkayga ayaan ku qanacsanahay, waxaana ahay nin shaqaysta, ilaah baana mahad iska leh. laakiin haweeneydan nafteeda ayaa ku qanacday. waxaa jira rag guursaday gabdho yaryar laakiin aan helin raaxada nolosha, kuwaas oo ku nool kadeed iyo qaxar. bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa markii ugu horreysay labadan lamaane waxay ku kulmeen garoonka Qaahira, markaas oo jacaylkoodii uu sii xoogaystay. Iris Jones oo dareenkeeda cabiraysay xilligaasi ayaa tiri, markii aan arkay wiilkan dheer kadibna uu islaamay, waxaan idhi, war ninku qurux badanaa. waxaana dareemay sida inaan ahay gabar hadda uun qaangaartay, iyadoo ninkaygii horena aan kala tagnay waqti haatan laga joogo 40 sannadood. kaaga darane, Iris Jones waxay 10 sano ka weyn tahay islaanta sodohda u noqotay ee Maxamed hooyadiis. dhanka kale, labada wiil ee ay dhashay Iris ee lagu kala magacaabo Steve oo 54 jir ah iyo Darren oo 53 jir ah ayaa quudareeyay jacaylka cusub ee hooyadood, iyagoo sheegay inay aaminsan yihiin in wiilkani Masriga ah aysan wixiisu jacayl ahayn uu u socdo oo keliya hantida hooyadood. Iris oo arrintan ka hadlaysay ayaa waxay tiri, carruurteyda oo 50 jir ah waxaan isku khilaafnay jacaylka Maxamed, waxaana markii aan isfahmi weynay wiilkayga Darren oo 53 jir ah aan ku iri guriga iga bax, halka sidoo kale inankayga kale ee Steve uusan ila soo xiriirin isagoo ka xun go'aanka aan qaatay. isku soo duubo, haweeneydan Ingiriiska ayaa waxay warka ku soo koobtay, waxaan rabaa in inta aan geeriyoon inaan nolosheyda la qaato wiilka aan jeclahay. waa wiil aad u fiican oo runtii jacayl igu abuuray. luqadiisa Ingiriiska ma wanaagsana oo ereyada uu isku dhex qaldayaa, laakiin yaa u baahan luqad marba haddii aad gacanta ku haysato jacaylkaaga. Daruuraha.